saaxiibada Soomaaliya ay ku leedahay dalalka dunida burburkii ka hor waxay lacago badan oo deyn siiyeen dawladihii kala duwanaa ee soo maray dalka waxaana ay ku bixin lacagahaasi mashaariic horumarineed oo laga sameeyay qaybo badan oo kamid ah dalka sida wadooyin isku xira gobolada dalka oo la sameeyay goobo waxbarasho iyo sidoo kale in lagu bixiyay caafimaadka gudaha dalka iyo arrimo kale oo aad u fara badan oo horumarinta Soomaaliya qayb ka ahaa markale ay saaxada caalamka ku soo noqotay Soomaaliya burbur dheer oo soo maray kadib waxaana ay aqoonsadeen caalamka sanadii 2012 in Soomaaliya yeelatay dawlad rasmi ah balse waxa aad u adkaatay in saaxiibada dibadda ay ka hesho maalgelin maadaama ay jirtay qaal lagu leeyahay dalka qorshahan deyn afiska oo aanay badan ka hadalay waxa soo bilaabmay 4 sano ka hor buu si rasmi ah soo bilaabmay وسو دوتيي marka 3 sano imika aan joognaa anagu ayaan islaahay uu aad u hana qaaday waxaan xasuusanay markii uu horeysay nimaadno aan la hadalo adduunyada in jawigoodu aad uga duwanaa sidoo maanta yahay marka waan soo soconay waxaan ku tilmaamayaa aan kuna tilmaamaa programkan ku dhex jirno imika dhamaysku dhow sidii arday jaamacad gashay oo kale oo la yiri programkiinu waa 4 sano marka sanadba waxba dhamayni maaragta sanadda waraysa dhamay weydo wad ku noqoni hadda kale dhamaydo wad ku noqoni marka intaas oo sanay ku qaadanayda dhamay weydo marka runtii inaga lama filayn inaynu ka baxno sanadka hore leena waxa yiraahdeen wax hore inooga bartay heedo wax walba waxa ka hor imanaya waxa ma qabanayaan iska dhaaf oo jilciya haday qaban karaan xataa ma qaban karayaan dab kama aha kama run aha ya waxa soo dhan baa meesha yaalay laakiin ilaahay ma hadii waan qabanay wixii dadku qaban lahayn iyo wax ka sii badan marka dhamaad baan ku doonahay imka xilliga wixii ka dambeeyay waxa bilowday qorshe culus oo la doonayay in looga gudbo caqabadaha ka hor yimid dawladda mana ahayn arrin sahlan oo lagu talaabsan karay durba laakiin waxa jiray hiigsi iyo qorshe ay la timid dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda koowaad ee sidii loo gali lahaa geedu socodka deyn cafiska dalka oo bilowday sanadii 2017 waxyaalaha ugu waaweyn la hor dhigay waa wax dadka kala qaban karaan laakiin inagu aynoo suura gali weydeen si fiican u qabano waxa ka mid ah dakhligeena inay kordhino waxa ka mid ah inaan wax aynaan haysan soo iibsan waxaad soo iibsanayso inaad ogaato lacagteedan haysato inaad dadka u gudbiso dadku ku tartamaan yani nidaam saas oo kale ku socono waxa ka mid ah adduunku dawlad wanaag waxa la yiraahdaa waa shuruucda ku socoto sharciga ku socoto shuruucdii oo gabowday in dib loogu noqdo sharciga maaliyadda dib loogu noqdo sharciga dakhliga dib loogu noqdo sharciga sharikada dib loogu noqdo sharciga shuruuc fara badan oo maaliyadda haga iyo dakhliga haga in dib loogu noqdo furdadaha in dib loogu noqdo ka furdadaha waxa soo dhan baa dib loogu noqday waxaana noo suura gashay ilaahay amarkii in la wada ansixiyo dhawaantan la ansixiyo intooda badan wax badan inoo mahadinimo dawladda Soomaaliya ayaa hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka kula heshiisay inay ka soo baxdo dhammaan shuruudaha ku xusan barnaamijka deyn cafiska ee loo yaqaan SMB ka oo ka koobnaa ilaa 4 qaybood dhammaan ay ku guuleysatay waxa jiray shuruudo adag oo hor yaallay Soomaaliya waxaana ka mid ah dib u habeynta nidaamka maaliyadeed ee dalka Poverty is one of the greatest pain a people and nation can suffer. Saboolnimadu waa xanuunka ugu weyn ee la dhibtoon karaan bini'aadamka, dadka iyo dawladuhu. Dawladda Soomaaliya iyadoo kaashanaysa dadkeeda waxay si adag uga shaqaynaysaa sidii loo dhisi lahaa mustaqbal xasiloon oo xor ka ah saboolnimo iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada. Habka aan u marayno suulinta faqrigu waa inagoo abuurayna fursado dhaqaale iyo dib u habeyn himilooyinkeena maaliyadeed iyo kuweena dhaqaale ee hagayso hay'adda lacagta adduunka si horaanta sanadka soo socda nologa cafiyo deynta iyadoo loo marayo habka adduunka uu ku heshiiyay in dalalka aadka saboolka ah ay u maraan deyn cafinta ee loo yaqaan hibig sida IMF u dhigtay
waxaan qabannay shaqo badan muddo gaaban waxaan sii wadi doonnaa inaan kordhinno dakhliga gudaha ka soo xarooda inaan horumarino hannaankeenna miisaaniyadda iyo in nidaamkeenna maaliyadeed oo noqdo mid daahfuran oo la isku hallayn karo waxaan si dhow ula shaqayn doonnaa dhammaan saaxiibadeenna muhiimka ah saamileyda oo ay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha dhaqaalaha adduunka si loo hubiyo deyn cafinta Soomaaliya. Financial institutions to secure debt cancellation for Somalia. durba waxaa laga howlgalay dib u habeynta dhammaan hay-adaha maaliyadeed ee dalka dejinta shuruucda horubtabinta u leh maaliyadda kordhinta dakhliga gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. halkaan markaan imid standardka caalamku wax lagu sameeyo laguma sameeynayo laakiin baaris ayaan sameynay waxyaalihii ugu waaweynaa aan helnay sanadkaas ayaa waxaa ka mid ahaa 12 wasaaradood iyo hay-ado kale oo kharash qabanaya isticmaalayeen ma waxay u sameynayeen inay ayaga rabeen maya laakiin ma jirin isla xisaabtan ma jirin qof wax u sheegaya ma jirin waddan dib u soo kacay ayaan nahay reportka ayaan soo saarnay baarlamaankaan u gudbinay xukuumaddaan u gudbinay dikreetaa ka soo baxday ra-iisul wasaaraha uu leeyahay waxaanoo idil wasaaradda maaliyadda sida xafiiska antidhowrka guud ee qaranka uu ku sheegay taladuu ku bixiyay ha la sameeyo waa ilaahay mahadiis maanta hay-adahaas inaysan qaban sanadkan 4 ayaa jirtay oo iyagana la sheegay 2018 oo immediately reportkan markuu soo baxay tii ugu weyneed oo ahayd hay-adda dambi baarista CID-da wax laga qabtay qaldaadka sidaas ayaa loo saxayaa marka dhammaanteen waxaa loo baahan yahay inaan foojignaano inaan ogaano meeshaan u soconno meeshaan hiigsanayno la rabo in gacmaheenu nadiif ahaadaan inaan noqonno dad waxaa lagu aaminayo nabadgelinaya waana tan maanta muuqata oo la nabadgeliyey oo dadkii Soomaaliyeed maanta cid u sheegan karta in dawladdu ay deen ku leeyihiin ma jirtaan filaya wasaaradda maaliyadda ayaa dadaal dheeri ah ku bixisay kororka muuqda oo lagu sameeyay dakhliga gudaha iyo miisaaniyadda guud ee dawladda. Waxaan rabaa golahayga wasiirada inaan uga mahad celiyo shaqada xooggan oo ay dalkan u soo qabteen. Haddii marka dadka qaar aanay aaminsanayn shaqada aad dalkan u soo qabateen marka aad waddanka imaanayseen 168 milyan ay ahayd miisaaniyadda ugu timaadeen. maantay waxaad ansixiseen 460 milyan oo dollar. number saxa boqolkiiba 174 in ka badan ayay kor u kacday oo macnaheedu waxay tahay maysan timaadeen shaqadaas hadaad idinku qabanina العلس مركب انت ودنك aad joogteen in ka badan 70 milyan ayaa sanad walba kor u kacayay oo sanadka hadda ugu dambeeyay oo ahaa sanadkii xoog ugu badan u galay oo aad kordhiseen 120 milyan oo dollar dakhliga soo galay dawladda waana ku mahadsantiin haddii marka shaqada aan wadno aan sii wadno oo Febraayo dalka deynta laga cafiyo meesha aan ka tirinayno maada iyo malaayiinta waxaan soo gaarsiinaynaa dalka in loo bedelo ba iyo bilyan sadii ilaahay raado waana mahadsantiin wasaaradda maaliyadda waxay golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka u gudbisay dhammaan shuruucda muhiimka ah ee tilmaamaha ka bixisay in lagu socdo wadadii saxda ahayd iyo heshiiskii hay'adda IMF lala galay waxa ugu horeeya in la xoojiyo oo la sii wado habkii dib u habeynta maamulka maaliyadda dalka iyo sidii loo maareyn lahaa hantida ummadda u soo xeroota looguna bixin lahaa meeshii loogu talagalay waxaa qorshaysan in la horumariyo xiriirka lala leeyahay dadka Soomaaliyeed ee cashuuraha bixiya iyo in la fahamsiiyo wixii ay bixiyeen waddanka meeshu soo gaarsiiyay oo ah in korodkii ka soo xirooday cashuuraha waddanka laga ururiyo inuu sababay in aan soo gaarno meel la yiraahdo Soomaaliya waxay ku socotaa waddo sax ah in la horumariyo oo la fuliyo shuruucda maaliyadda shuruucda iibka qaranka shuruucda shirkadaha wax alla wixii shuruuca ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay soo dhameeyeen madaxweynuhuna saxiixay ee sharci noqday ku dhaqankoodii iyo implementationkoodii in la fuliyo waddo dheer baa ina sugaysa laguma soo koobi karo waxa wasaaradda u qorshaysan
waxaa ka mid ah in la tayeeyo shaqaalaha wasaaradda. wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa aaminsan in kororka sanadkan 2020 la buuxiyey dhammaan shuruudihii asal ku ahaa barnaamijka SMB geedi socodka deyn cafiska Soomaaliya. anagu quwadda waxaan saarnay wada tashi adaanay wasiirada maaliyadda wada tashi ayaan quwadda saaray khayraad hadduu noo yimaado inaan miiska wada fadhiisano ka heshiino ka wada hadallo wax isla garanno ayaan anagu ku shaqaynaa ama ha noqoto lacagaha kabka miisaaniyadda ama ha noqoto ka timaada muxuu haynaan badda ka timaada wixii meel nooga yimaado inaan ka wada fadhiisano ayaan runtii ku heshiinay waxa kale oo ku heshiinay waxa shuruucda baarlamaankeenu labada aqal ay gudbinayaan ay ka shaqaynayaan inaan horta anagu soo lafagurno oo isla soo lafagurno oo anagoo kaashanayna komitiyada maaliyadda ee labada gole anagoo kaashanayna inaanu gobolada wasiirada maaliyadda iyo technical people koodana u yeedhno meel wada fadhiisano isla lafagurno meel baan ku wada soconay baan anagu heshiis ku nahay marka aad baan anagu u faraxsanahay halkaan taaganay hadaan wasaaradda maaliyadda iyo saaxiibada wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada qaybta ka federaalka daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya waxay muujiyeen guulaha cadcad oo laga gaaray horumarinta dhaqaalaha dalka hirgelinta shuruucda maaliyadeed ee dalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo sharci laga soo saaray isla markaana madaxweyne Farmaajo uu saxiixay. Very good news from the IMF executive board today. qorshahan waxa uu ku tiirsan yahay dadaal ballaaran oo caalami ah oo ku salaysan xubnaha kaalmooyinka lacageed iyo xaddiga laga helay ilaha gudaha ee IMF managing. tani waxay muujinaysaa muhiimadda in laga caawiyo Soomaaliya tallaabay u qaadaysa inay ku soo noqoto hanaankii caadiga ah ee xiriirka caalamiga ah ee dhinaca dhaqaalaha iyo horumar laga sameeyo deyn dhaafka iyadoo loo marayo hal abuurka deyn cafinta wadamada fakhriga ee HIBC. cafinta deymaha Soomaaliya waa mid ka mid ah waxyaabaha hortabinta u leh hay'adda lacagta adduunka. waxaan dhiirigelinaynaa taageerada ka imaanaysa xubnaha muhiimka u ah arrinkan garashadooda ah in Soomaaliya ay horumar la taaban karo ka samaysay dib u habeynta dhaqaalaha si waafaqsan barnaamijka kooxda la socodka hay'adda lacagta adduunka ee SMB. barta go'aan qaadashada hal abuurka deyn cafinta wadamada fakhriga HIBC uu bilaabanayaa qorshihiisu sida ugu dhaqsiyaha badan marka ay xubnaheenu inoo soo gudbiyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah deyn cafinta. waxaan filayaa in mas'uuliyiintu sii wadi doonaan dib u habeynta dhaqaalahooda. tani waxay caawinaysaa furidda ilaha dhaqaalaha si Soomaaliya u gaarto horumar ballaaran iyo yareynta fakhriga. miisaaniyadda dawladda ee sanadkan 2020 ayaa ku dhow half bilyan waana astaan cad oo daliil u ah in la sameeyo koror iyo dhaqdhaqaaq xooggan oo dhinaca dakhliga gudaha ah. maanta labadii gole oo wada fadhiya labadii guddi oo wada fadhiya ayaa isla falgalay oo annaguna aan la falgalay marka wada hadallada iyo debate-ka laga galay waxa uu ahaa mid kii hore ka adagoo de laba group ba isku yimi marta laba guddi ba isku yimi waxa kale oo jira de halkan markii la yimina maalintii korreysay baa halkan la isku yimi iyadoo labada gole wada fadhiyaan ayaguna waxay sii badinaysaa halkii 130 halkan laga doonayay 130 iyo 40 dhinacayna ka yimid dadkii baa sii batay fikradihii la haystay baa sii batay sidaa daraaddeed way sii xoogaysatay budgetku miisaaniyaddu way sii xoogaysatay talooyinka iyo tilmaamihii lana siinayna way sii bateen marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay siday maanta u soo gabagabeeyeen. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa 3 sano la soo dhaafay ku guuleystay inay bixiso dhammaan mushaaraadkii shaqaalaha dowladda taasoo qayb ka ahayd shuruudihii lagu galay barnaamijka deyn cafiska. waxaan laakiin ku heshiinay World Bank IMF waxaan ku heshiinay waxa weeye war horta intaanad deynta bixin adeero deyn kala hagin oo dadka aad arkayso haddaanan lacag siinayna ka soo iibsan wax oo dadka shaqaalaha ay jooga maanta deyn ha ka gelin horta deyn kale inaan gelin ayaa horta talada iyadu hay taasaana imika la wadaa waxaase isku dayeynaa mar bashad walba wax intaan ku yar daro inaan dabeetana aan dabacno inaan wax iska bixinaan ayaa isku dayeynaa. bisha labaad ee sanadkan 2020 waxaa loo madlan yahay go'aanka gaarista barnaamijka deymaha looga cafinayo Soomaaliya si ay u hesho maalgashi iyo dib u dhis lagu sameeyo kaabayaasha dalka. Soomaaliya ayaana IMF iyo World Bank la hortagi doonta iyadoo soo buuxisay shuruudaha adag ee ku jiray barnaamijka SMB4 iyo kuwii ka horreeyay. madashaasi ayaa noqon doonta mid Soomaaliya dhabaha ugu xaarta weji cusub iyo horumar dhaqaale oo xooggan.